guddiga ganacsatada beledweyne ayaa deeq raashin ah oo gaaraysa ilaa 1,000 qoys ku wareejiyay odayaasha beesha Surre ee ka soo jeeda deegaanada Kabxanley iyo Deefo ee waqooyiga gobolka Hiiraan. Deeqda lacageed ee gaarsiisaneed $200,000 ayaana $50,000 oo kamid ah lacagtaas looga qoondeeyay in ilaa 1,000 qoys lagu siiyo deeq raashin ah iyadoona raashinkana lagu beesgareeyay qiimihiisa ilaa $50. guddiga ganacsatada ayaa sidoo kale odayaasha beesha Surre kala hadlay sidii loo dhameyn lahaa colaado hore u dhaxmaray beelo walaalo ah waxayna odayaasha sheegeen inay diyaar u yihiin inay nabad dhankooda ay ka qayb qaadanayaan sidii colaadaas loo dhameyn lahaa. Xaaji Cusmaan Dhagaxow iyo Xaaji Maxamed Sabriye Nuur oo ah madaxda guddiga gurmadka beledweyne ayaa ka hadlay goobta ay ku wareejinayeen deeqda raashinka iyagoo ka warbixiyay deeqda ay wareejiyeen iyo halka ay ka timid. هذه هذا ما تسنتين بعد قبضة فضلنا بلنكي عن كقادني والعالي اللي يمدها كان وبحاولنا نور كان قبل كان وفي السومالي لان هي حلقة أول هذا حلينا هنا وحلنا هاي خير الله يجزيه بلن بقى اسمه بلن كاسي وها إن حوالي كانين واللح بقول وكنا هي قبل كانوا كانين أفر بقول وكن وحقوا مقعدرين إن فتهاد لوجع اليو ويف مجالده ayuu tala galeen way ogaayeen 200,000 ay dadka masaakiinta loo qaybiyo la yiri oo 4,000 qoys lagu quudiyay tii baan u fadhinaa meeshan halkaani waxa weeyaan waa walaalaha inaga la ballameen si gaar ah oo Surre ama direed oo ay yiraahdeen marka 1,000 qoys la siiyo 1,000 qoys raashinkooda la siiyo iyaguna waa isku waafaqnay inay 1,000 qoys soo gorgorsadaan raashinkooda lacagta loogu reebo $50,000 oo qiimihiisu ahaa raashin loo siiyo taasoo heshiisku ahaa $50,000 oo ahaa 1,000 qoys raashinkooda lagu iibiyo suuqay tagan way soo gorgorsadeen marka meeshaan waad arkaysaa baqaarka aan fadhino ayaa raashinku ku jira baqaar kale oo ku jira iyaga soo gorgorsaday xorriyadooda ay leeyihiin maadaama aduguna wuxuu magacaawdeen iyaguna isaw aqbaleen annaguna aan guddigeena aan goobjoog u nahay ragii ganacsatada ahaa oo halkan ku wareejiyo Xaaji Deerow uu nala fadhiyaa isaguna waa halkaas u joogaa sidii ku waxaan marka ugu nimid goobta inaan ku wareejino marka Ilaahay idinkiisa haddana waa ku wareejina annaga xageena iyagana waa dhageysan doontaan kelimadeena dhinacaas weeye aad iyo aad u mahadsantihiin jazakumullahu khayr idinkana waa aad iyo aad u mahadsantihiin wixii Allah idin barakeeyo saamka soo qaadeen kulli waxaan la soconaa inay saaka ka baxayaan airportka nabad Allah geeyo waana wada hadli doonaa بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سيد عاجي الشهري مناسبة waxay inaan ku wareejino 1,000 qoys raashinka marka walaalaha Surre ayaguna xaq yihiin soo qorsadaan arintii soo dhameeyeen marka aan fadhinaa marka inaan ku wareejino xaaji soo sheegnaa ku wareejinay wax qalan rabnay maadaama aan nimid oo ay jirtay dhibaatooyin waxa kala tabanayay ayadana maanta inaan ka faa'iideysano oo aan maaragtay u kala kabsano si arintaas loo dhameeyo lahayd walaalahan waa kabsanay waana wada hadalnay waana isfahamnay ayadana waxaan jecelnahay Ilaahay noo guuleeyay in arintaasi aan dhameeyno oo bulshada yeelano dadkaas oo keenay ayagana aad inoo aqbalay aad u maasan yihiin marka fursadaasna waa ka faa'iideysanay kulli annagu arintaas aan u soconay taana waa ku darsanay billahi tawfiiq. odayaasha beesha Surre ee lagu wareejiyay deeqda raashinka ayaa ka mahadceliyay deeqda iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin deeqda la soo gaarsiiyay waxayna u mahadceliyeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. saaka in lagu wareejiyay 1,000 qoys raashinkeedii annagoo raalli ah oo soo xisaabanay oo yacni mataqaanaa walaalihii nooca lacagta lagula dhiibay iyo annaga waxda aan soo fadhino waxaan raalli ku nahay wixii ay nagu soo wareejiyeen iyo raashinkiina waan haysanaa waa kana qofkanaga saaran waa mahadsantihiin annagoo ah dadka degan Deefo iyo Kabxanley raashinkii 1,000 qoys ahaa oo lagu talagalay oo walaalaha Soomaaliland ay keeneen walaalaha guddiga ganacsatada xoolahaas way lagu wareejiyay wayna annagoo qiimaha aan rabnay si fiican u gorgorsanay sida ahaydna ay noo siiyeen sida direct ah waxba nagama maqno على قوس كنت كن راشين كان نقطة الجشين وكنت كده على قوسها ونلو وريجي سفعة
waxa kalenta ay noo keeneen inay wanaag badan ay samayn doonaan oo dadka walaalaha waxoogu madmadow ka dhex jiro inay geli doonaan annagana waxaan ogolaanay inaan taladaas hadduu ilaahay yidhaahdo haddii wax qabanayaan oo masaalaxad ka shaqaynayaan inaan garab istaagno العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka hore waxaan u mahadcelinayaa guddiga noo yimid raashinkii noo keenay marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliland uu madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi asiga iyo madaxdiisa iyo dhammaan reer Soomaaliland oo dhan u mahadcelinaynaa waxay ay arooriyeen oo ay ugu talagaleen gobolka Hiiraan waana soo gaareen waan helnay waxa kale oo u mahadcelinaynaa guddigii fatahaadaha ee reer Soomaaliland ee gudoomiyaha uu ka yahay Jamaal Caydiid maadaama ay naftoodii iyo maalkoodiiba ay u soo horeen oo la soo garab istaageen walaalaha reer Hiiraan ay ku kaalmeeyeen waa u mahadcelinaynaa waxaan leenahay Allah barakeeyo waxaan kale oo u mahadcelinaynaa guddigii kale ee alaabta u dhiibeen annaguna wixii nagu nala siiyey waan helnay kunkii qoys raashin baan ku helnay si fiican wixii annaga aan rabnaan ku qaadanay waa mahadsan yihiin walaalihii noogala tegey reer Soomaaliland Allah barakeeyaan leenahay wixii ay soo baxsadeen Allah ku barakeeyaan leenahay waan helnay ilaahay baa mahad iskale meeshaan nagu kulmiyey hadallaahi intii na kulmisay waxaa weeye dadkii waqooyi ka yimid oo fatahaadaha iyo dadka danta yarla oo dhibaataysan usoo gurmaday deeqihii ay bixinayeen ayaan meeshaan ugu kulannay waxaa halkaan ku kulansan deegaanka Deefo iyo Kabxanley dadkoodii iyo guddigii ganacsatada gobolka Hiiraan ee deeqdaas bixinayay ay u horeeyaan dahabshiil iyo hormuud rugta ganacsiga waa salaameynaa waa idin mahadcelinaynaa intaa kadib waxaan leenahay intii wax baxsatay intii ka shaqaysay intii soo saarqaaday ajri xasaad Allah ka siiyo walaalihiin ayaad u soo dhibaatooteen wixii aad nagala kulanteen oo dhib ahaana haddii inaad u sabirtaan oo u dhowr adeegtaan Allah idinku duwo annagana waxay noola yimaadeen walaalaheen noo yimid madaxa hormuud iyo dahabshiil ah in ay iyo rugta ganacsigaba in ay raadinayaan heshiis iyo nabadgelyo waarta sidii uga dhaxdhici lahayd labada beelood ee xoogaa xurgufta ee dhex taal